السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن شافعي كورته sidoo kale YouTube channel-ka aad daawanayso waa Shafii Korite. adag bariyahan dambe hawada ayuu ka maqnaa si wada ogtihiinba, laakiin nasidii kara maanta soo laaftay hoba kaliya soo dhawaada maanta muuqaal cusub maanta waxaan wadaa barnaamijkii hore dabcan uu ka dawan yahay waa qiso ay ii dhibtay gabar la shay waxa jira bariyahan dambe inaan sameeyo xagga qisooyinka social media dabcan YouTube-ka inta badan kama baxaan, laakiin TikTok iyo meel kale ayaan ku bixiyaa sometimes qisooyinka qaar aniga qoro iyo qaar ay dadku ila soo wadaagaan. sidoo kale gabar ayaa waxay ila wadaagtay aan kamid ah asxaabtayda ayaa waxay ila wadaagtay qisayada shakhsiyadeeda ku dhacday mar magaceedana sheego. qisadaas waxay ahayd inay isbarteen wiil muddo saa u sii dheerna ay xiriir lahaayeen, kadibna in waxa dhacday gabadhii wiilkii adiga markuu ma dhaaydo ma fahmi waayay ma damaca ayuu rabay xoogaa danaga ragana iska damac badanahay. waxa dhacday in gabadhii aan uu ku sameeyay adiga inuu gabar kale la shukaansado iyo waxyaalo noocaas ah. kadibna waxa dhacday gabadhii suu dareensiyo in macnaha uu lambarkeedii siiyay, kadibna adiga uu ku dhahay qofkaas lambarkeeda qaado iyo waxyaalo noocaas ah. kadibna gabadhii kale ay aragtay isaguna uu mar walba ugu dan lahaa inuu labadan gabdhood muhiimadiisu ay labadan gabdhood inuu wada hantiyo qalbi hal mar hal qof dabcan waxay la tahay hal qof ma qaado, yani laba qof ma qaadan ka wada hal qof ayuu qaadaa. kadib waxa dhacday gabadhii maalmaha kamid inuu ku dhahay familkayga ayaa waxa iga soo gabar igu dareen asagoo ku tijaabinayo waxay dhihi lahayd iyo qaabkii uu jawaabi lahayd. gabadhuna waa gabar sidaba u jeclayd ay ahayd. kadib waxa dhacday in markii dambe ay ku dhahday okay dhimanahan iyo waxyaalo noocaas ah, asagiina ayadoo waliba jecel oo u baahan inay hadana dhahday dhimanahan adiga ay u ogolaatay. kadib arinta laakiin waxay ahayd arin been ah. gabadhuna ma ahayn gabar familkii uu laga soo doonto ama asagoo rabay inuu guursado, waa qorshe asuu watay wax arin family ma ahayn, familka uu ku hoos gambaday. kadib waxa dhacday gabadhii inay gabadhii kale ay la markeeda heshay ayna ogaatay arintan in ay arin macnaha kale ay tahay oo gabadhii adiga istorigiisa iyo waxyaalo lamid ah ay ku casuumayso asaga. gabadhiina markii sidii arintii u dhacday kadib markii dambe waxay weydiisay qofkan maxaa kala dhaxeeyo waxyaalo noocaas uma sii jawaabin. kadib waxa jirtay in macnaha ay dhacday wiil kale oo asaga saaxiibkiisa inuu ku dhahay arintaas igal gabadhii horeete arintii jirta ay u sheegtay wiilkii saaxiibkiisa aha. kadibna asagu wuxuu ku jawaabay labada gabdhood waa u wada baahanahay. bal fiiri, waa laba gabdhood qalbiye ayay leeyihiin. sanadka maanta lagu jirana dabcan waxa jiro rag tartan ugu jiro in nin walba afar gabdhood ama laba gabdhood uu hal mar hantiyo ama guursado. nin walba wuxuu rabaa iskoorkaas inuu jabiyo, laakiin masha Allah dumarkeena Soomaaliyeed 90% kuma qanacsana noloshaas. marka waxaan rajay lahaa in gabar walba ay ilaahay dunida dadku waa badiyay raguna ma yaro. si kale diinteena way dhigaysaa qof walba in uu guursan kara afar xaas in haduu awood u leeyahay noloshoodana uu ka faana qaadi karo. laakiin waqti hadda aan lagu jiro dumarka ma ogola 99% wad ognahay gabar kale la guursado, in gabar kale la shukaansado. marka waxaan dhihi lahaa dumarkeena Soomaaliyeed qalbiga ka jibin. hadii maanta aad shukaansatay oo isfahmi weyseen oo ogolow ma tagayso, waa gabar walaashaa qof kale ay isfahmayaan. hadii aad isfahmi weyseen qof kale ay isfahmayaan. hadii aad aragto ayadoo la hasaaweynayso qof kale ha ka xumaan, waayo adiga waxa laga yaabaa in aad isqaadi weyseen ama aad isfahmi weyseen, laakiin qofkan kale inay ku qanacsato noloshan isku fahmeen. marka wana rabo ilaali qalbiga dumarka, waayo qalbiga dumarku waa wax aad u muhiim ah. mid kale dumarku ogow mar walba ay agtaada joogan
waxay og yihiin ama ay niyadda ku haayaan in ay yihiin ama in aad adiga tahay libaax. dumarna intay ku jecel yihiin ama qalbigooda ay ku nugul yihiin waxay agtooda ka tahay libaax. marka mar walba waxaan dhihi lahaa ya qalbi jabka dumarka laga daayo, waayo dumarku masha Allah waana dhaleen, waa waalidkeena, waa wax kasta inoo yihiin, waa dunida horumarta maanta aad arkaysi wadan walbo waxaa horumarsiiyay dumarkiisa. waxaan rajeynayaa dumarkeena in mar walba farxadda iyo waliba jacaylka si fiican aan uga nagaano si aan wadamada hormaray sidoo kale anagana la tartano. aad maasantiin muuqaalka dad ku caajistay waan ka rali gelinayaa, laakiin tan waxay ahayd sayro kooban oo aan la wadaagtay walaashay. sidaas ayaan kugu soo marigay, waana mahadsantihiin. sidoo kale barnaamijyo kale oo ka bixi doona halkan hadda aad ugu cusub tahay subscribe noo saar intaan ku kulmayno fiidiyogan iyo fiidiyo xiga aan kaga tagayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.